السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مقال عصب iyo channelkeena Korayaan Ramadaan Kariim Ilaahay acmaasha wanaageeda hanaga aqbalo dhamaanteen muuqaalkeena maantay waxaan ku qaadaa dhigi doonaa su'aasha ah sidee Facebook iyo shirkadda Instagram lacagta u sameeyaan maalin kasta ku dhawaad 2 bilyan oo qof ayaa isticmaala Facebooka si joogto ah taasoo ka dhigan in 4 meelood hal meel dadka ku nool adduunka ay isticmaalaan si maalinle ah Facebooka inkastoo ay jiraan Eedeymo iyo Dhaliilo Loosoo Jeediyo shirkadda Facebook hadana aad ayuu u sii kordhayaa tirada dadkaasi sanadkii 2018 waxay shirkadda Facebook soo xaraysay dakhli dhan 55 bilyan in ka badan 37% sanadkii ka horeeyay ee 2017 haddaba iyadoo aysan dadka isticmaal Facebooka iyo Instagramka aysan wax lacag ka bixin applicationka sidee ayay shirkadda Facebook iyo Instagram u sameeyaan bilaayiinta dollar shirkadda Facebook ma waxay gadaa xogta shakhsiga ah ee qofku leeyahay waxayna ka gadaa shirkadaha raba ama dawladaha shisheeye run ahaantii waa ay ka fududahay arrintu sidaas Mark Zuckerberg oo ah aasaasaha shirkadda Facebook ayaa senator ka mid ah senatarada Mareykanku weydiiyay su'aasha tan sidee ganacsigaaga Facebooka ku wada iyadoo aysan dadku wax lacag ah bixin haba yaraatee waxa uu ku jawaabay Mark Zuckerberg mudane waxaan ku shaqaynaa xayeysiinta inta badan shirkadda Facebook waxay ku tiirsan tahay dakhli ahaan xayeysiinta marka laga reebo qalab ay gado oo ay ka mid yihiin speakerada iyo qalabka wax lagu daawado laakiin inta badan waxay shirkaddu aad ugu tiirsan tahay xayeysiinta heer 99% dakhliga shirkaddu uu ka yimaado xayeysiinta ama advertisement-ga loona yaqaano ad waxa uu ka duwan yahay kii aan naqaanay ee caadiga ahaa ee aan telefishinada ka daawan jirnay run ahaantii aad ayuu uga sahlan yahay kagana habboon yahay xagga suuqgeynta shirkadda Facebook waxa xayeysiinteeda heerka sare ka dhigay waa iyadoo si toos ah u beegsata qofka ay rabaan inay badeecada ka gadaan waxaana kor u qaaday fikradda wanaagsan ee xayeysiinta ay gabadha Cheryl oo la shaqayn jirtay Google-ka ay ku soo biirtay company-ga Facebook iyadoo isticmaalaysa qaabkii ay doonayeen dadka Google-ka wax ku xayeysiista haddaba waxaad ogaataa daawade xayeysiin kasta oo ku aragtid baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram-ka waa mid adiga gaar ku ah laguna beegsanayo amoodin inuu iska yimaaday company-ga badeecada xayeysiisanaya waxa uu rabaa inuu kharashkiisa ama lacagta uu bixinayo kaga lumin qof aan ku qanci doonin badeecadiisa sida haddii ay gabar tahay waxa la tusayaa xayeysiin waxa gabdhaha la xiriira sida toobabka dumarka haddii uu yahay nin jecel hilibka waxa la tusayaa xayeysiin meheradaha hilibka la xiriira ee la tusimaayo xayeysiin la xiriira waxyaabaha khudaarta shirkadda Facebookna midaas waa u sahlashay sababtoo ah qof kastaba xogtiisa khaaska ah ayuu geynayaa bartiisa taas oo sahlaysa in shirkadaha wax xayeysiiyo aad ugu tirsanaadaan shirkadda Facebook maadaama ay 90% heli karto customer ku qanca badeecadeeda arrinkan ayaa ku noqday dhabarjab aad u weyn shirkadaha caadiga ah ee xayeysiinta sida telefishinada guud maadaama uu telefishinku ballan qaadi karin shirkadaha wax xayeysiinaya cidda daawanaysa xayeysiintooda iyo inta qof oo daawan doona ma waxay noqon doonaan dadkii la rabay in xayeysiintu gaarto ma waxay noqon doonaan dad raba iyo dad aan rabin haddaba Facebook wuxuu ku hayaa garanti ah in xayeysiintaadu gaarayso qofka aad rabto haddaba shirkaddu sidee ayay u ogaan kartaa cidda aad tahay dad badan ayaa aaminsan in laga daawado kaamirada ama laga dhageysto maya run ahaantii xogta inta badan waxay ka heshaa shirkaddu sida aad u isticmaalayso apps-keeda kala duwan ee shirkaddu leedahay sida Instagram-ka WhatsApp-ka iyo Facebook-ka waxayna gelinaysaa xogtaada asaasiga ah sida da'daada waxbarashadaada goobta aad ku nooshahay waxaad la wadaagaysaa asxaabtaada goobta aad booqatay location-kaaga goobta aad ku sugan tahay waxaad sidoo kale jeclaatay ama like saarto pages-ka aad ku biirto gruubyada aad ku biidho dhammaan xogtaas waxay sahlaysaa inay shirkadda Facebook isku dayso inay xogtaas ka gado shirkadaha raba inay ku xayeysiistaan Facebook waxa uu sidoo kale Facebook xogta ku aruuriyaa isagoo adeegsanaya Facebook Pixel oo aruuriya xogta haddaba xogta qof kasta ayaa waxa loo nidaamiyaa qaab gooni ah iyadoo qof kasta loo sameeyo khaanad gooni ah waxayna gaareen heer ay ku beegsan karaan waxa aad jeceshahay telefoonka aad isticmaasho noociisa xataa dakhligaaga si loo xaqiiqsado inaad gadan karto badeecada lagu tusi doono ama lagu xayeysiin doono waxa kaloo xusin mudan in xayeysiinta aadan moodayn inay tahay xayeysiin ama ad iyo in kale toba adigoo ku raaxaysanaya qaab ka fudud kana duwan qaababka kale ay telefishinadu u xayeysiiyaan sidaas oo ay tahayna waxaa jira khaladaad ka dhaca shirkadda oo ay mar haweenay ilmo ka soo xaaqmeen ku wareeriyeen xayeysiin agab ilmeed sidoo kalena waxaa jira eedeymo cunsuriyeed oo lagu geystay qoomiyadaha Yuhuudda waxaa sidoo kale jirta eedeymo laga soo jeediyay shirkadda Facebook oo dawladda Mareykanku ku soo eedeysay iyagoo sameeya wax la dhaho faquuq ama discrimination kuna beegsanaya jinsiyado ama qoomiyado gooni ah shirkadda Facebook waxay sidoo kale aad uga qayb qaadatay sanadii 2000
2016 arrimaha siyaasadda iyadoo gaday xog in ka badan 87 milyan oo qof la xaday sanadii 2016 waxaa jira qaabab aad iska ilaalin karto in shirkadda Facebook ugu beegsato xayisiinta nooca kan oo kale ah sida inaad bedeshid xogtaada ama aad dhilido Facebookaaga oo dhan laakiin se taasu xal maahan sababtoo ah waxaad sii isticmaalaysaa programmada kale ee shirkaddu leedahay sida Instagramka iyo WhatsAppka taasoo ay ka heli karto xogtaada oo dhammaystiran qofka aad tahay nooca aad tahay waxaad jeceshahay iyo dabeecadaada ay ka qiyaasi karto waxaa jira isku dayo shirkadda Facebook ay ku sameynayso si privacy-ga ama xorriyadda khaaska ah ee qofku leeyahay u kordhiso waxaa jirtay dhacdo aad u xumayd oo ahayd ninkii soo weeraray masaajidda New Zealand oo soo bandhigay qaab live ah isagoo weerarka geysanaya masjidka dhexdiisa inkastoo ay shirkadda Facebook dhiliday in ka badan malaayiin koobiga fiidiyodaas ah ayaama gudahood waxaana maskaxdaada ka guuxaya ma aamin baa xogteenu ma loo adeegsan karaa siyaabo xun mase laga gadi karaa xogteena shirkadaha ama dawladaha raba runtii su'aashaas waa su'aal isweydiin mudan laakiinse waa su'aal tuhunkeeda leh oo loo baahan yahay qofku inuu iska ilaaliyo fadlan daawade ha ku qorin xogtaada oo dhammaystiran Facebooka isku day inaadan ku soo bandhigin da'daada saxda ah qofka aad tahay qofka aad guursanayso Facebook waa sida shaarica adigoo soo dhigay xogtaada sida da'daada meesha aad ku dhalatay qofka aad qabto oo qof kasta iska daa inay shirkada gataan qof kasta marka uu soo galo si sahlan ku heli karo Ramadaan Kariim waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena maanta waxaan ka codsanayaa mudane inaad subscribe tiraahdo sidoo kale la wadaagto asxaabtaada aad ayaad u mahadsan tahay